isbitaalkii wuu baaba'ay maanta wax ka nool ma laha qayb waliba oo maartay way burburtay ha noqoto qaybtii gargaarka degdega oo meesha ugu horeysaba oo lafteeda ay ku dhaawacmeen qaarna ay ku dhinteen dadkii dhaawac loo keenay meesha iyo shaqaalihii ka shaqaynaya oo ku dhaawacmay iyo qaybaha kale isbitaalka oo isku jirta qaybtii bukaan jiifka qaybihii bukaan socodka qaybihii khaliinka qaybtii maartay haweenka lagu dhalinayay qaybtii carruurta nafaqada daran iyo dhammaan ambulance isbitaalka iyo qaybtii maartay meydka la dhigay isbitaalka meel ka hartay oo dhibka maartay maashan ka dhacay ma jiro marka intaas laga soo tago waxaan dhihi lahaa u soo jeedinayaa marka ugu horeyn maamulka stateka Hirshabeelle maartay oo hogaaminayo madaxweyne Guudlaawe iyo dhammaan maamulkaas inta maanta mas'uuliyadda ay saaran tahay oo aakhir wax laga weydiinayo iyo dhammaan maamulka maartay federaalka oo aan marka ugu horeysa ka xuseeyo wasaaradda caafimaadka maartay federaalka iyo wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo dhammaan inta maartay xildhibaanada maanta xildhibaannimadii maartay maanta ku matalaya degmadan Beledweyne ama gobolka Hiiraan dhamaantiis ku matalaya iyo dhammaan inta hay'adaha samafalka iyo dadka mataqaan muxsiniinta iyo dadka jaaliyadaha mataqaan ay ka soo jeeda gobolkan iyo dad kale oo islaam oo ka naxayo ka danqanay mar isbitaalka dhibka soo gaaray waxaan u dirayaa baaq ah in ay isbitaalka la soo gaaraan si wax loogu qaban lahaa isbitaalkiina uu noqon lahaa isbitaal dib u shaqeeyo oo dib u hanto shaqadii iyo adeegga caafimaad ee gobolka uu hayay waxaan maartay marka labaad haddana aan u soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka lafteeda Hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka mataqaan federaalka in dhammaan ay iska xil saaraan isbitaalkii way arkaan dhibka soo gaaray way arkaan dhibaatada maartay ku dhacday waxa weeye wax maartay aad iyo aad maartay xanuun badan waay waxaan loo baahan yahay marka maadaama isbitaalku oo bukaano badan qaabili jiray shaqo badan uu hayay waxaana dhibkana ilaahay u keenay qadar ilaahayna ay ku noqotay wax mataqaanaa bini'aadam sababan ay tahay waxaan dhihi lahaa waxaan u soo jeedin lahay in arrintaasi loo kaco oo laga shaqeeyo isbitaalkii sidoo dib ugu shaqayn lahaa waxaan kaloo dawladda hoose qaasada degmada Beledweyne aan u soo jeedinayaa in maartay ay naga saacidaan isbitaalka way arkaan isbitaalka waxa qashin iyo qaraash iyo burbur iyo baabuur mataqaanaa baabuur gubatay oo isbitaalka dhex gashay oo maartay dhex taal ay arkaan oo meelaha qaarkood aan la mari karin dhiig daadsan iyo meeshaasna laga arkayo in lafteeda la malaynayo inay ku hoos jiraan dad dhintay iyo hilbahoodii oo meel walba qur aan la mari karin in arrintaas ay naga saacido dawladda hoose ayaan mataqaanaa ka codsanaynaa